السلام عليكم dhalinyaro maanta waxaa miiska noo saaran taxanihii daaha 17 mise 17 jir qaybtiisa shanaad oo falanqeynaya waxyaabihii muhiimka aan ka hadlayno iyo qaybta lixaad waxyaabaha soo socda oo dhici doona iyo waxyaabaha laga filan karo xalqadaasi lixaad. xalqada lixaad waxay ku daafurmaysaa aroos oo in badan raadinaya walaalkiisa muddo badan waqti ku bixinaya in la dhahay walaalkaaga Damiir waa uu dhintay oo ma noola soo shan jir ayuu wuxuu ku dhintay badda. taasna aroos boqolkiiba boqol waxay dhulka dhigaysaa rajadii uu ka qabay walaalkiisa isagoo aaminaya in walaalkiisa oo dhintay noloshana ka dhacayo. sidoo kale dhammaan dadka ku dhawaanaya agaarkiisa waa isku dira yani waa isku dhacayaan sida saaxiibkiisa iyo gabadhii jacleed wuxuu ahay Liila ahaydba. taasna waxaa keenaysa dagaalka oo la gala Tiam kaasoo Tiam dhammaan ardaydii u qeybay magaca Damiir ayagoo ku celcelinaya taasna kasii waashay wuxuu ahay aras dhibaatana in uu geysto xitaa ku bareeray oo halkaas ku garaaco Tiam. kadib markay saaxiibtiisa kala celis dhaheen markaas ay dhibaatada keentay oo isku dayo inuu saaxiibtiisa isku diro mid walbana oo iska fogeeyo xitaa uu haba ugu darnaatay midii Liila ahayd. Liila waxay dareemaysaa in sababun ay ka dambaysan aras oo sidan waxaan aqoonsan dhibaatadan uu geysto balse meesha isaga deysanays ee caawiso asiga waxa uu u bedeshtay wajiga oo iska fogeey. Liilana waxay markaas go'aan ka gaaraysaa in mar dambe aysan la kulmin yani asiga dhanba ay iska fogeyso karkeeda ay jaakiri doontaa markaa xalqadaas u socdo saarfad badan mari doono. sidoo kale waxyaabo la yaab ah inuu Tiam uu caawiyay aras markii ay isku dayeen in xeebta ay ku garaacaan kuwii maqaayad oo ku foodeen kadib iska celiyay waa kuwaas ayaa ka doomaanay xeebta si ay u dilaan. taasoo dan kaga sii darayso in aras uu doonayo Tiam inuu duugo. Tiam ayaa doonaya aras inuu duugo haddana asiga caawiyay oo ka celiyay dadkii asiga rabay inay garaacaan. taasna aad ayaba taxanaha u sii ruuxaysa. sidoo kale Tiam wuxuu ka shakisanaay ninkii maaragtay uu rabay in aras oo gudka lagu duugo uu qado oo ka diiday kaas ayuu dabgalay waxaan ogaanay in asiga sarxada wax ka dhexeeyaan meeshaas ayuu haddana baaritaan kale ka bilaabaya. arasna hore wuxuu sheegay in Damiir walaalkiisa yani aras walaalkiisa Damiir uu heli doono markii helana asiga uu doogi doono yani wuu ku rikaatay doonaa markii aan helana yani markaas si fiican u xisaabtameen oo ka wada. kadib wuxuu arkayaa ninkii oo maaragtay ka soo diiday in aras Faris oo la sameeyo oo wuxuu arkayaa in sarxad ninkii ahay ay kala bedelinayaan baabuurta. si toos markaa wuxuu si dabagalayaa ninkii sarxad ahay habeennimo markii ogaada ninkii baabuurkii loo dhiibay oo shir ku dhintay la dhahoyo baabuurka shir galay oo ninkii ku dhex dhintay la dhahoyo wuxuu si toos u dabagalayaa marka ninkii sarxad ahay wuxuu arkaa telefoon yar telefoonkan marka wax si toos wuxuu isku xirayaa asiga iyo aras halkaas ayaan ku yaabaa laakiin kulli hadda yaabitaan nooga dhigaan Soomaaliland xaqada wali wax ma fahmayaan marka yani wax ma fahmay ka dhigi doonaan kaliya haladaas bas inuu maqlo baadin oo jari doonaan adima qaan kulli si bay u xalli doonaan inuu aras in kale waa arkana laakiin xalqada marka soo baxday ayaan arki doonaa. tada kale aras asxaabtiisa kuwa qalad ka galay oo iska dhaalgelinaya oo maaragtay oo la heshiinaya balse Liila ayaa ku adkay doonta oo wax dhanba iska iloway dhihi doonta. tan ka sii daran ayaana in Denise u sheegtay qofkii maaragtay in laga wada magaaladan ka hor istaagay qoyskeeda in Liila in ahayd marka taasna ayadana waa xujo kale. sidoo kale aras hadda kama u sadhigay in walaalkiisa oo helo maxaa yeelay wuxuu arkayaa sawir soo tadaba jir waxaan u keenay sarxad waana sababta rajiis dib ugu soo laabtay maadaama asxaabtiisa mar hore oo isku xumeeyay dib ayuu ka raali gelinaya. haddana aan gudubno qaybta lixaad waxyaabaha dhici doona waxyaabaha soo socda aan qaybtan ku arki doono waxaan soo koobay oo falanqeyn badan ma ka dhex galayay wuxuu ahaa in sarxad horta waa la ogaanayaa kadibna hakaan ayuu handadi doonaa. shabnaan way ogaan doontaa in sirta banaanka iyo maar rabto waxaa la weydi doonaa Tiam waxaa la raadinaya Liila iyo aras balse arasna weli walaalkiisa ayuu sii raadinaya isaga qaybtan lixaad waxaa soo socda waxyaabo aadan maskaxdaada xitaa ka suuraysan karin. xalqadan soo socota waxaa inay ka diri doonto xalqadaha dhammaan aad daawanay waa arkayna laakiin wixii soo bixi doona mar hadda muuqaalkan daawata asxaabaadina muuqaalka la gno saar muuqaalka walba like asaartid waxay ka dhigan tahay inuu sii faafi doono marka adinkana muuqaalka meel dheer in nala gaarsiisina rajeyna waxa nala garab istaagtaan inta ka kulmaan marka muuqaalkiisa xiga waa idin la sidaas nabad geliyo.